nashqadan taherbe waa halo si qarano digsigiisu meel maray waa hawlihii guud garhaya ilaaliya danta guud weegana. magacaygu waa cabdiraxmaan maxamed aar waxaan ahay agaasimaha nashqadeynta magaalooyinka wasaaradda hawlaha guudulka iyo guryeynta. runtii magaaladan waxay noqonaysaa magaaladii shanaad afartii sano ugu dambeeyay wasaaradda hawlaha guudulka iyo guryeyntu ay u samayso nashqada ama master plan. marka master plan aynu samaynano runtii waxa fiican intaynaan fulin samaynin inaan xog ururin samayno data collection iyo maabiskii kala duwanaa ama nashqadihii kala duwanaa aynu samayno ee xaaladda imika jirta iyo ta mustaqbalka aan rabno inaan propose gareynaba. marka imika 20 cisho u dambeeyayba hawlweynada wasaaradda hawlaha guud iyo kuwa dawladda hoose qaar ka mid ah iyo dad kale oo intaan sheegiba waxa ay ku hawlanaayeen sidii ay xog rasmi ah uga keeni lahaayeen magaaladii. muddo 20 cisho ah waxyaabo fara badan baanu ogaanay hadday noqoto caqabadihii magaalada haystay hadday noqoto baahiyii waaweynaaye ay ahayd in wax lagala qabto iyo mustaqbalka xaggaynu u soconnaa oo ayna hagayso waxa imika aynu ku aragnay magaalada innagoo oo ka taxadirana waxaan oo kale inay soo noqdaan mar labaad. tusaale ahaan caqabadaha aanu adres gareynay ee magaaladu aad uga cabanayso waxaa ka mid ah waddo xumo, waddooyinkeedii oon isku wada xidhnayn, xaafadaha qaar oon waddaba lahayn, iyagoo aad u dhuudhuuban, iyagoo oo aanu kala saarnayn degsiimo iyo commercial oo waddadii commercialka maraysay iyo wadda xaafadeedkii aan wax farqigiiba u dhaxayn oo isku cabir yihiin. sidoo kale waxaad arkaysaa isticmaallo dhul oo kala duwan oo aanay ahayn in la iskaaga dhoweeyo oo isag ah warshad iyo masaajid isku ag yaalaad arki kartaa, iskuul iyo maxaan ku rahaa generatorro waxyaabo aad u kala duwan ama ay ahayd in la kala fogeeyo oo iska ag noqday sababtuna ay tahay qorshe la'aanta ay iskaga dhismayeen. imika waxaad arkaysaa meelaha qaar malcaamadu ay isu jiraan block kasta hal malcaamad laga helayo iyo meelo aan malcaamadba lahayn oo taasina haddii ay qorshe lagu xisaabtami lahaa waxay ahaan lahayd in standard loo sameeyo oo aanay iskaga dhowaan karin malcaamadii oo kale. waxaad arkaysaa primary schoolyadii oo meelaha qaarna concentrator ku ah meelaha qaarna aan lagaba helayn. taa lafteeduna waxay ahayd kale qorshe xumaantun baa keenaysa. waxaad arkaysaa meelihii loogu talagalay ciyaalku inay ku ciyaaraan oo magaalada dhan intaa leeg maxaan ku raahdaa 20,000 ee block imika aanu ka diiwaangelinay oo marka laga reebo stadiumka weyn hal playground oo public ah oo dhalinyaradu ku ciyaarto oo aan ahayn meel bannaan oo nin sheeganayo oo dawladdu ugu tala gashay aanay jirin. marka caqabado aad u fara badan iyo oo u baahan xal ayaan imika 20 cisho ka warkeennay. xog ururintan markay dhammaato waxaan rabnaa inaynu samayno nashqadii magaalada ee 20 sano ee soo socda. nashqadaasi waxyaabo fara badan bay xalin doontaa. waxay xalin doontaa caqabadihii waddooyinka oo waddooyinku waxay noqon doonaan waddooyin darajooyin kala duwan leh. kuwii aynu ugu talagalnay ganacsigu cabirkii loogu talagalay ee standardkii bay yeelan doonaan. kuwaynu xaafadaha ugu talagalnay cabirkii loogu talagalay xaafadaha yeelan doonaan. waxa kaloo aynu samayn doonaa inaynu ogaano area kasta in laga helo meeshii dhalinyarada ku ciyaaraysay, saldhiggii, iskuuladii public ahaa ee kala duwanaa iyo meelihii caafimaadka ee kala duwanaa. waxyaabihii baahiyihii aasaasiga ummadda ahaa oo dhan nashqada ay ka wada muuqato oo waddooyin standard oo dhaadheer oo cabirkooduna kala duwan yahay leh ayaan insha Allah rajaynaynaa inay ka soo baxdo xog ururinta kadib. imika Boorama waa magaaladii shanaad san hore oo sheegay master plan ka bilowno. horta mid bay kaga duwan tahay Boorama waa buuraley jeexjeexyaduna way ku badan yihiin. marka waa caqabad wax noqon doonta waddada 5 kiiloomitir aad jeexdaa intaasoo doox iyo intaasoo buurood oo kala dheer ayay maraysaa. guddiga nashqadeynta qaranku waxay xustay sida xeer number 17 ma dhigayo in
buuraha iyo jeexjeexyadu yihiin dan guud taasna inaguna sideedaynu tixgelinaynaa buurna qorshayn mayno jeexjeex gaarana qorshayn mayno imaka xog ururintan markay dhammaato waxaan samayn doonaa maabis waaweyn oo iskoosyada waaweyn magaalada aan ku dhejin doono maabiskaasi waxay ina tusayaan magaaladu soo ekaan doonto dhinacyada u fidaso wadooyinka kala duwan ee maraya iyo structure-koodii ka muuqda kadibna waqti yar kadibna fulintii oo cagafyadii kala duwanaa tiimkii sarfeeyinka iyo tiimkii kale ee la shaqaynayaba insha Allah sida ku dhaqsaha badan markaa u bilaabi doonaan wacyigelintuna intaa way soconaysaa reeborama fariintan u diraya waxa weeye horta nashqadani ama master plan-kani runtii magaaladan aad buu ugu dan yahay waana waxa u baahan tihiin inaad nagala shaqaysaan fulinteeda oo meel uga soo wada jeedaan oo haddii ay dhul ku dhacayso iyo hadday deerar ku dhacayso iyo hadday guryo ku dhacaysaba aynu dhinac ka wada ahaano fulinteedana aynaan caqabad ku noqonay aynu hirgelinteeda iyo wada jirkeeda insha Allah ka wada soconno maadaama cidda looga tegayo ee nashqadan dhaxlaysa ee quruxdan iyo waxaan oo dhan helaysaa ay magaalada tahay inaynu waqtigaa yar kooban shaqadu socoto meel uga soo wada jeedno insha Allah nashqadanta herbe waa la si qarano digsigiisu meel maray